madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo war-saxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay xarig loo geystay waa sida uu hadalka u dhigay dhalinyaro ka soo horjeeday qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee la xiriira hanaanka doorashooyinka dalka. Farmaajo ayaa tilmaamay in xarigga dhalinyarada iyo wariyaasha oo soo noqnoqday looga gol leeyahay in looga hortago kacdoonka bulshada sida uu markale hadalka u dhigay. xarigan iyo caburinta isdaba jooga ah ee nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kula kacayo dhalinyarada iyo haldoorka Muqdisho si uu u xakameeyo kacdoonka bulshada ee diidan eexda musuqa iyo barakaca waa mid dhaawacaya dowladnimada siina hurinaya guuxa iyo gadoodka shacabka ayuu mar kale hadalkiisa ku sii daray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. sidoo kale wuxuu fariin culus u diray hay'adaha amniga gaar ahaan booliska oo uu ku adkeeyay inay ka fogaadaan dhibaateynta shacabka gaar ahaan dhulboobka iyo caburinta lagu hayo sida uu yiri. ciidanka Soomaaliyeed waxaa loo aasaasay ilaalinta shacabka, difaacidda karaamada muwaadinka, sugidda amniga iyo dhowrista xuquuqda dadka Soomaaliyeed. sidaas darteed waxaan adkeynayaa in hay'adaha amniga ay ka fogaadaan fal kasta oo shacabka ku abuuraya cabsi, barakac iyo kalsooni darro ayna ka taxadaraan in loo adeegsado dana shakhsi ah iyo xukun maroorsi ayuu mar kale yiri madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaa kale oo uu raaciyay marar badan ayaan ka dignay falalkan dhaawacaya dowladnimada, sumcadda qarannimada iyo kalsoonida shacabka kuwaasi oo dhulboobka, caburinta iyo ku tagrifalka awoodda ay saldhig u yihiin. maanta waxaa taagan natiijada laga dhaxlay oo ay ugu horeyso isku dhacyada ciidanka iyo shacabka careysan oo diidan ku tagrifalka iyo karaamadooda in ay soo ceshadaan. Farmaajo oo maalmahan qoraal soo saarayay ayaa horay u sheegay in jimcaha soo socda oo ku beegan 15 May 2026 ay tahay maalintii ugu dambeysay ee mudaxileedka sharciga ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo ugu baaqay madaxweynaha in uu muddada yar ee u hartay uu xoogga saaro dhismaha hanaanka doorasho loo dhan yahay oo ay ku wada qanci karaan dhammaan dhinacyada siyaasadda si looga hortago qalalaase siyaasadeed iyo kala qaybsanaan hor leh oo bulshada dhexdeeda ah. dalabka Farmaajo ayaa ku soo aadaya xilli mucaaradku ay isku diyaarinayaan qabashada dibadbax weyn oo ka dhan ah dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo 10 bishan qorshuhu yahay in uu ka dhaco magaalada Muqdisho. mucaaradka ayaa raba in dibadbaxa ay qayb weyn ka noqdaan shacabka laga burburiyay guryihii ay deganaayeen kuwaasi oo maalmihii u dambeysay cabashooyinkooda marinaya warbaahinta gudaha.